Assalaamu calaykum. Shilkii diyaaradda ee Ethiopian Airlines waa dhacdadii ugu weyneyd isbuucan. Diyaarad nooceedu ahayd Boeing 737 Max ee uu farsameeyo Mareykanka ayaa ku dul burburtay meel wax yar u jirta magaalada Addis Ababa. Waxaa diyaaradani dhacday 6 daqiiqo kadib markii ay kasoo duushay Pole International Airport iyadoo ku sii jeeday Jomo Kenyatta. Waxaa dhammaan ku geeriyooday 157 rakaab ah iyo 8 qof oo ka shaqeynaya diyaaradda. mana jirto cid ka badbaaday shilkan aadka u daran. Haddaba maanta waxaan soo qaadanayaa 10 shil diyaaradeed ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda. Nambarka 10. Duulimaad ay sameynaysa shirkadda diyaaradaha ee Swiss Air oo ay ku sameynaysay diyaaradda lambarkeedu yahay 111 ayaa waxa uu ahaa duulimaad caalami ah. Waxay ka soo kacday magaalada New York iyadoo u jeeda Geneva, Switzerland. Markay taariikhdu ahayd September 2, 1998, diyaaradda ayaa ku dul burburtay badweynta Atlantic meel 4 mayl u jirta magaalada Halifax ee waddanka Canada. Dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo tiradeedu ahayd 229 ayaa ku geeriyooday. Baaritaanka iyo howlgalka lagu raadinayay diyaaraddan waxaa ku baxday $38 milyan. Baaritaanka waxaa lagu ogaaday in sababta ay u dhacday diyaaraddan ay tahay dab ka bilaabatay qaybta tijaabada kuna faaftay qaybaha kale ee diyaaradda. Rakaabkii saarnaa diyaaraddan ayaa waxay isugu jireen barofeseero, cilmi baarayaal iyo ganacsato. Nambarka 9. Diyaaraddii lambarkeedu ahaa Ever 7 oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Korean Airlines. Duulimaad ay samaysay sanadii 1983 bishii September, taasoo ka soo duushay New York kuna wajahneyd magaalada Seoul ee Korea iyadoo diyaaraddu ku hakanayso Alaska. Diyaaradda ayaa ka leexatay qadkii loogu talagalay inay marto, waxayna martay dhul ay lahayd Midowgii Sofiyeet. Diyaarad dagaal oo ay lahayd Midowgii Sofiyeet ayaa ku dhufatay gantaal dhulkana soo dhigtay diyaaraddii, taasoo keentay inay gasho xaaladihii ugu dannaa ee dagaalkii qaboobaa. Waxaa sidoo kale ka dhashay in diyaaradaha Mareykanka ay ka taxadaraan in mar dambe sidan dhicin, taasoo keentay in la soo ikhtiraaco GPS. Nambarka 8. Shirkad duulimaad oo laga leeyahay waddanka France ee loo yaqaano Air France. Duulimaad ay ku samaysay diyaaradda nambarkeedu yahay 447 oo ka soo kacday magaalada madaxda Brazil ee Rio de Janeiro una socotay caasimadda France ee Paris. Waxay ku burburtay badweynta Atlantic Ocean saacadu markay ahayd 2:14 daqiiqo. Waxaana ku dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa oo tiradeedu ahayd 228. Ciidamada badda ee Brazil ayaa helay qayb ka mid ah diyaaradda iyo meydkii 2 qof 5 maalin kadib burburkii diyaaradda. May 2011 ayaa la helay sanduuqa madow ee diyaaradda, waana 2 sano kadib burburkii diyaaradda. Nambarka 7. 25 May 2002, duulimaad lambarkiisu ahaa 611 oo ay samaysay shirkadda diyaaradaha ee China Airlines, taa oo ka soo duushay waddanka Taiwan una jeeday Hong Kong ayaa weysay kontaroolkii iyo hogaankii diyaaradda. Waxay bilowday inay burburto hayna soo dhacaan qaybo ka mid ah diyaaradda 20 daqiiqo uun markii ay ka soo kacday iyadoo 23 mayl u jirta jasiiradda Bangkok. Waana duulimaadkii ugu murugta badnaa taariikhda waddanka Taiwan, waxaana ku dhintay 225 qof oo ah dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda. Nambarka 6. 6 Agoost 1997, duulimaadkii shirkadda diyaaradaha ee Korean Air oo lambarkeedu ahaa 801 ayaa ku dhacday jasiiradda Guam oo hoos tagta Mareykanka. Dhimashada ayaa gaartay 228 qof oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa diyaaradda oo gaarayay 254 qof. Waxayna waday ciyaartooy ka qaybgeli lahaa tartanka Mini Olympics ee South Pacific oo ka dhacayay American Samoa. Kabtankii diyaaradda waday oo da'diisu ahayd 42 sano waxaa lagu magacaabayay Park Yong-chul, ka oo ah mid ka mid ah kabtanada ugu khibradda badan shirkadda Korean Airlines. Hase ahaatee, roob badan oo da'ayay darteed ayaa sababtay in wax la arki waayo, jahawareer kadibna diyaaraddii hawada ka baxdo dhulkana ku dhacdo. Nambarka 5. Diyaaradda Transworld duulimaadkeedii 800 oo sidoo kale loo yaqaano TWA 800 oo nooceedu waa Boeing 747 taa oo burburtay intii ay ku jirtay dhexbartamaha duulimaadkeedii.
waxayna ku dhacday badweynta Atlantic meel u dhow bariga New York, waxayna dhacday 17 July 1996, 12 daqiiqo kadib markii ay kacday garoonka caalamiga ee JFK saacadu markay ahayd 8:15 habeenimo. Dadka badanaa waxay aaminsan yihiin in burburka diyaaraddan sabab u ahayd weerar argagixiso. Waxaa ku naf waayay 230 qof oo saarnaa diyaaraddan, laakiin 4 sano oo baaritaan ah ayaa la ogaaday inaysan weerar argagixiso ku burburin diyaaraddan. Taa beddelkeeduna ay ahayd cillad farsamo oo ay haysatay diyaaraddan. Nambarka 4, duulimaad lambarkiisu ahaa eber 4 oo ay sameynaysa diyaaradda Light Air oo ahaa duulimaad caalami ah. May 26, 1999 ayaa burbur soo wajahay cillad aan la fahmin awgeed. Burburkan ayaa dhaliyay dhimasho gaaraysa 213 qof oo saarnaa diyaaraddan, waxayna ku dul dhacday dhul kaymo ah oo ku yaala waddanka Thailand. Nambarka 3, diyaaradda Pan Am oo duulimaadkeedu ahaa 103 oo duushay 21 Diseembar 1998, taa oo ka soo kacday Frankfurt kuna sii jeeday Detroit, ayaa burburtay kadib markii bam laga dhex qarxiyay diyaaradda, waxayna ku dhacday meel deegaan ah oo ku taala Scotland, taa oo keentay inay dhintaan 11 qof oo dhulka joogay iyo dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda oo tiradeedu ahayd 259 qof. 3 sano oo baaritaano ah waxaa caddaatay in 2 qof oo u dhashay Liibiya ay ahaayeen dadkii ka dambeeyay qaraxa. Nambarka 2, burburka diyaaradda Air Africa 8 January 1996 iyadoo ka timid Moscow waddanka Russia kuna sii jeeday Koper Airport, waxay soo degtay iyadoo si xun ugu ordaysa runway-ga iyadoo dhaaftay oo ku burburtay suuq ku yaala waddo u dhoweyd, waxayna sababtay dhimasho gaaraysa 225 qof iyo 253 kale oo dhaawac ah. Nambarka 1, 27 March 1977 2 diyaaradood oo nooceedu ahaa Boeing 747 ayaa isku dhacay iyagoo maraya runway-ga markaa oo ay ka baqayeen qarax bam weyn oo ka dhacay garoon diyaaradeed oo ku yaala Spain oo la yiraahdo Gran Canaria. Isku dhaca labadan diyaarad ayaa keentay in diyaaradaha garoonka yaalla ay waxyeello gaarto. Khasaaraha ka dhashay waxa uu gaaray 583 dhimasho ah iyo 61 dhaawac ah. Intaas inoo joogo mowduuceennii maanta. Wasalaam.